walaalayaal maalintii ugu dambeysay guddiga joogtada soo saarayeen madaxweynaha dalka ka maqnaa aniga ma gudoominaynin gudoomiye Sacdi walaashay gudoominaysay arinta markii la soo daray su'aalo badan aniga la weydiinayay markii dambe guddiga joogtada xubnihiisa iyo gudoonkii gudoominayay iyo habrooraha dadkan isweydiinay wixii ula jeedan waxaan idhi arintan maamul goboleed waan weydiinayaan xukuumad waan weydiinaysaa siyaasiin kasta waan weydiinayaan maxay tahay waxay yiraahdeen waxaan ula jeednaa arrimaha masiiriga maadaama dastuurka hoos doodiis ay furan tahay in maaragtay masiiriga dalka yaani dastuurka lagu saleynayo uu yahay in maaragtay dastuurka ka doodistiisi iyo maaragtay sidoo ku imaan karo wax loogu bedeli karo yaani jihaynta saasaan ula jeednaa igu yiraahdeen idinkaba waa fahmi kartiin waad ogtihiin golaha labada aqal oo isku jiro ayaa wax ka bedeli kara dastuurka waxaana keeni kara wax bedelkiisii xukuumadda keeni karta hal dawlad goboleed keeni karta hal xildhibaan keeni kara yaani waxa keeni kara 40 kun oo shacabka keeni kara markii soo gudubto golaha soo gaartana labada gole ayaa ansixin kara wax ka bedeli kara ayaa ka doodi kara dadweynaha dhageysi xaq ay u leeyihiin ra'yigooda inay dhiibtaan xaq ay u leeyihiin siyaasiyiinta xaq ay u leeyihiin laakiin waxaan rabnaa inaan la siyaasadaynin oo maaragtay barnaamijkaas waxaan ula jeednaa bay yiraahdeen nidaamkii uu lahaa in la mariyo oo maaragtay barnaamijkaas ula jeednaa inuu ugu fasireen idinkaba waxaa tiin khubradii ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ileen baarlamaanka wuxuu matalayaa shacabka Soomaaliyeed oo la soo koobay way baarlamaanka macnihiisi waa meesha kale oo loo dhan yahay labada gole qaarataan golaha shacabka aan maanta meesha ku fadhiino ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel ma soo fadhiisan karto waa ummadii oo la soo koobay mumathaliintii oo madaxweyne u dooratay xukuumaddu ansaxisay shuruucdii u ansaxiso ayaanu nahay marka ujeedada waxaa loola jeedaa in maaragtay maadaama waqti xasaasi ah lagu jiro in barnaamijka wixii aan waajibaadkeeni aan si yaani sida uu nafarayo dastuurkeeni ilaa wax laga bedelo sidiis looga dhaqmo oo la isku ixtiraamo saasa ula jeednaa yiraahdeen idinkaba maaragtay uma baahanidin in maaragtay arintaas maanta idin baro marka wadabadana horyaalo waa aad ay muhiim u yihiin xildhibaanada marka waxaan leeyahay waliba habrooraha waxa iga codsaday haday gudoomiye aniga jeednay waa aniga ra'yiga waa ku biiranayaa igu yiri asiin laba kalimaan siinaya sidii maaragtay fasiraadaas sheego laakiin dadkii arintan jihiin lahaa meel saari lahaa oo ummadda Soomaaliyeed maaragtay iyo yaani dadka hogo isle arintan maanta la soo jeeday maxay tahay islana in maaragtay jidkoodii iyo inay nala fahmaan oo noqoto mid ummadda waxtar u noqoto dawlad dhiska iyo hor u socodka mid caawis inay noqoto arintan yaanu la jeednaa mid khilaaf abuuraysa inay noqoto lama jeedno aad u mahadsantiin habdhooraha lama kala siinay ayaga jooga anigu